بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan ku jirnay kitaabkii alcaruud alwaadix dersigii u dambeeyey kolley uu naga kala go-ay dersigaasiyo waxaynu isagoo dersigu dhexda maraya ayuu kala go-ay waxaan markaanu maraynay walcaruudu athalithatu saxiixatun mashtuuratun fahiya caruudun wa darbun fii waqtin waaxid walcaruudu athaalitha caruudada saddexaad saxiixatun waa mid caafimaad qabta ee uu leeyahay baxru rajasku waa baxrigii afraad caruudadaasi waa saxiixatun way caafimaad qabtaa mashtuuratun kala barh baa laga jaray fahiya caruudun wa darbun fii waqtin waaxid caruudo iyo darbi ayay labadaba tahay hal mar ayay noqonaysaa baxru rajaska marka laga dhigo mashtuur saddex tafciilo ayaa soo hadhaya haluu ka ahaa 6 tafciilo waxaa soo hadhaya saddex mustafcilun 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 markay soo hadhaan saddexdaasi mashtuur baa lagu magacaabaya kala barh baa la tuura taa u dambaysa ayaa waxay noqonaysaa dhinac marka laga eego waxay noqonaysaa caruud dhinacna waxay noqonaysaa darbi labadaba iyada ah waa calaa axad alaqwaal mid ka mida madaahibta ku jira weeyi waana madhabka ugu fudud yani ay yidhahdeen culimadu waxa weeye madhabka ugu saxsan weeyi waana caruud waana darbi ahlucilmiga qaar waxay yidhaahdeen meelisku maadaama uu ahaan jiray 6 tafciilo oo uu lahaa 2 shadri shadrigan soo hadhay makii horaa ma ashadru alawal baa asadru miyaa mise waa alcajuz khilaafka noocaasa baa waxa ka soo baxaya madaahib ahlucilmiga qaar waxay yidhaahdeen saddexda tafciilee soo hadhay saddexdii hore weeyi oo waxaa la jaray ashadru thaani cajuskii ayaa la jaray haddii sidaa lagu socdo dee tafciiladaas soo hadhay ee saddexaad ee ugu dambaysa waxaan soo hadhay waxay noqonaysaa caruud waa madhabkaas qolo kale waxay yidhahdeen maye bal hiya darbun waaba darbiba tafciiladaas kaasina muxuu ku dhisan yahay calaa anna waayo wahada mabniyun calaa annahu xudifa shatru alawal in la jaray nuskii hore marka waxaan soo hadhay waa shadrigii dambe ta u dambaysa waa darbigii qolaa tidhi madhabkani waxa la yidhahdaa waa madhab dhexdhexaadin ahoo labadaa madhab buu u dhexeeyaayo wuxuu leeyahay maadaama aynaan caddayn haynin inay tahay waxa soo hadhay inuu yahay shadrigii hore iyo inuu yahay kii dambe toona caddayn ma hayne aynu idhaahno tafciiladaasi waa caruud waana darbi waa madhabkani waa aqrabu almadaahib ila alxaqiiqa waayo liannahu laa daliila yucayin daliil ma hayno laa daliila yadullu calaa ana maa xudifa huwa shatru alawal ولا دليل يدل على أن ما حذف هو الشطر الثاني ولذلك وجب أن تكون التفعيلة الثالثة عروضا وضربا في آن واحد مركا هو عروض وانا ضربي ماذا بكسر مركا ومرية هذا مركا أو النقضة مشطور والنوع مستفعل مستفعل مستفعلون ودمات بقى صدق لا تفعيلوي تعوضا بيسانة أي تهي عروض إسلا مركا أي تهي ضربي انت بقى يتحي والعروض الرابعة عروض أفرادنا الصحيحة وعافماد قبتها منهوكة نهكي بانا كتشرؤو وحا لغا شري ثلثين با لغا شري صدح ميرود والله با لغا شري 6 تفعيليه هيدا وحا كسو هريا لبا كليه فهي عروض يدو قدود وا عروض وضرب هي ضرب في وقت واحد وقت كليه تنو بي لمتهاي لكن وحا سو هريا لبا تفعيلو waxaa laga jaraya 4 tafciilo laba soo haraya mustafcilun mustafcilun ay soo haraysa marka labada mustafcilunta dambe ayaa caruudo ah isla markaa darbi ah waana caruud waana darb labadii way tahay labada maxay u noqotay waxa weeye wax cadeynayaan jirin labadii shadri kama hore la hor jaray ma shadriga hore la hor jaray oo ka dambe soo harayo kii dambe ayaa markaa haddana laga jaray tafciilo Allahu a'lam
mise ka dambaa la horjaro ka horaa soo haray oo kii horaa laga jaray tafciilo lama garanayo marka waa caruudun wa darbun fi aanin waaxid qolaa tidhi mee waa caruud qolaa tidhi mee waa darbi kana waa dhexdhexaadin wey ashawaahidu markhaatiyaashi alif shawaahidu rajazi taam rajaska dhammayska tiran markhaatiyaashiisa kow daarun lisalmaa'id sulayma jaaratun qafran turaa aayaatuhaa mithla azubuur daarun hiya iyadu daarun daar wey daarta oo lisalma salmo u sugnaatay id waqti sulaymaa gabadhii sulayme ahayd waa salmo uu yareeye jaaratun ay la jaar tahay daarta yani ay degan tahayba qafran xaal ay cidlo tahay daartaasi turaa waa la arkayaa aayaatuhaa astaamaheeda iyo calaamadaheeda ayaa la arkayaa mithla zubur mithla kitaabati zubur kutub qoraalkeed xaalay la mid tahayoo yacni waa daar gabowday oo muddo badan ay ka soo wareegtay xilligii la deganaa oo ay ka muuqato raadadkii oo laakiin baaba'ay sida kitaabka marka la qoro kale fartiisu ay u muuqato kale wey oo yacni ay yaryarida iyo markaa qarsoonida ay kaga shabahaya daarun lisal mustafcilun maa id sulay mustafcilun maa jaaratun mustafcilun qafran turaa mustafcilun aayaatuhaa mustafcilun mithla zubur mustafcilun waana ku qoranya taqdiicu baxrigan rajasku wuxuu ka mid yahay buxuurta loo yaqaano albuxuur almuwaxada buxuurta hal tafciilo ku wareegta wuxuu ku wareegayaa mustafcilun baxri kastoo hal tafciilo ku wareegayana si hore usoo marnay uu ka fudud yahay buxuurta maxay ah albuxuur almusdawaja buxuurta labada tafciilaa uu ka fudud yahay waxaan soo marnay baxriga loo yaqaano tawiil iyo basiid labadaa baxri waxay ahaayeen musdawaj mutaqaaribna wuxuu ahaa muwaxad oo facuulun buu ku wareegayay tawiilkana wuxuu ku wareegayay facuulun iyo mafaaciilun albasiidna wuxuu ku wareegayay mustafcilun iyo faacilun isagu labadaas waxay ahaayeen musdawaj rajaskani waa baxrigii afraadoo wuxuu ka mid yahay buxuurta almuwaxada wuxuu ku wareegaya mustafcilun marka uu fudud yahay maadaama hal tafciilo ku wareegayo aynu kuwaa middaa taqdiicino baxrigaas waxaan leeyahay meeriskaas daarun lisal inagu bobsinayna daarun lisal mustafcilun maaid sulay mustafcilun maajaratun mustafcilun markaad taqdiicinayso haylaabin alkitaabatu alcaruudiya inaad marto qafran turaa qafran nuunkaad qoraysaa qafran turaa mustafcilun aayaatuhaa waad kala saaraysaa labada hamze aayaatuhaa mustafcilun mithla zubur mithla zubur saasaad qoraysaa mithla zubur mustafcilun aka sida kuu muuqata waa taa caruudadiisii maa jaaratun waa mustafcilun waa saxiixa mithla zuburna waa darbigii isna waa saxiix labadii oo caafimaad qabaan waxba kuma sugna meeriska labaad alqalbu minha mustariixun saalimun waalqalbu mini jaahidun majhuudu alqalbu qalbigu minha gabadha xaggeeda mustariixun waa mid nastay oo saalimun badbaaday waalqalbu qalbiguna minii xaggayga jaahidun waa mid kadeedan oo majhuudun la kadeeday waa mid dhibaataysan oo majhuudun la dhibaateeyey alqalbu min mustafcilun haa mustari mustafcilun xun saalimun mustafcilun waalqalbu min mustafcilun nijaahidun mustafcilun majhuudu mustafcil halka looga socdo
وضرب مقطوعة ضرب وكجرو قطعي با كجرا قطعي با كجرا القلب من مستفعل القلب من مستفعل ها مستري مستفعل حن سالم مستفعل والقلب من مستفعل ني جاهد مستفعل مجهود waxay ku socotaa mustafcil marka hore waxay ahayd mustafcilun nuunkii baa laga jaray laamkii baa la sukuuriyey waxaa lagu magacaabaya alqaطcu mustafcil waxaa loo raraa markaa mafcuulun oo ka yara macaan xagga dhawaaq ahaan marka waxay noqonaysaa مستفعل مفعول meersi ku sii xiga waxa weeye kii majzuug ahaa oo laba jus baa laga jaray shaahidu waa ba shaahidu rajaz majzuug rajiska labada jus laga jaray tusaalihiisa ama markhaatigiisa waxa weeye مستفعلون قد هاج قلبي منزل من أم عمرو مغفر قد هاج waxa kiciyey qalbigayga waxa kiciyey manzilun guriga oo min ummi camrin ummu camri xaggiisa ka ahaaday guriga oo muqfirun ay khaalin cidloobay guri cidlaawey ayaa qalbigayga kiciyey yacni guri ay deganaan jirtay gabadha ummu camri oo hadda laakiin laga guuray oo cidlo noqday oo waxa weeye ugaadho ay ka heesayso ayaa qalbigayga kiciyey buu kuleeyahay damqay aynu aragna karna taqdiiciisa isagu waa 4 tafciilo quru noqonaya halku ka ahaa 6 tafciilo ayaa laba laga jaray marka waxa lagu magacaabayaa majzuuguna buxuurta aad buu ugu badan yahayo aad buu u galaa qad haaja qal intaas mustafcilun قد هاج قل مستفعل بمنزل مستفعل من أم عم مستفعل انت سوق انت كده رن مقفر على راعي واو لأجل الإشباع رن مقفر مستفعل قصدك كل مقطع هو 4 تفعيله مستفعل لبا كم مقن حلو مقعبيا مجزوء وانا الصحيح سيدك الوا عافماد قبا جيم شاهد الرجز المشطور رجز ككلبر لغا جري تساليهيس waxa weeye هذا أوان الشاد فاشتدي زيم هذا كان أوان الشد أي أوان الجري وحلي الأرد لهاي فاشتدي داره أرد زيم يا زيم فرس كي زيمي زيم واسم فرس وفرس مقعي هذا كان أوان الشد وحلي الأرد لها أي فاشتدي أرد زيم يا زيم فرس كي زيمي
وكيستاغي زيم أيه مركا أيه الله ضمن لها ومنادى حذف منه حرف النداء هذا أوى مستفعل نشد فش مستفعل ديز تدي زيم مستفعل صدق تفعيله قروي كنا هذا أوان الشد فاشتدي زيم سيكون مقتوى مشطور على قوضة صدق تفعيله قروي هذا أوى أوي مستفعل نش شد دي فش ايش بقى الاكبر هذا اوان نش شد دي فش نشد فش مستفعل تدي زيم تد يدي كلافر تد دي زيم مستفعل اوكي هذا أوى مستفعل نشد فش مستفعل تدي زيم مستفعل تعوض مساحة تدي زيم أي واحد تهي عروض وحانت تهي ضربي لبضبا قول كل مرة وفضاوي واي وحكا صار ينشرين واي وعيري دال شاهد الرجز المنهوك رجز كمنهوق لقد شري أفر تفعيله إنك وقالي تساليه سوي يا ليتني فيها جذع وين تابع يا ليتني فيها جذع يا ليتني مستفعيل فيها جذع مستفعيل والله ما تفعيله كلية يا ليتني مستفعل فيها جذع مستفعل يا ليتني الله شريت هذا يعني الله ميان فيها وقتها يعني أما أنت دحديدا ميان جذع قف أود لأنا هذا يا ليتني جذع الله ميان أود يش فيها أنت دحديدا يا ليتني مستفعيل فيها جذع مستفعيل عفري أنا واحد تقضيع وباهنين أو قرالة جوازاته وحيابها كبنان بحر الله يقان بحر الرجز وحيري مستفعل waxaa ku banaan in laga jaro siinka oo ay noqoto mutafcilun siinka laga jaray waa khabniga soo marnay in badan soo marnay wayalxaqhu galaa bahrigan buu haleelaa fi jamiici ajzaa'ihi tafaaciishiisa oo dhan buu haleelaa xashwan xagga dhexe xaalay tahay wa caruudan iyo darin shadriga hore aakhirkiisa wa darban iyo darbiga oo ah shadriga dambe aakhirkiisa inta uu galaa huwa saalixu mid wanaagsan weeyi uu fiican yahay ويسمى وحل لغو مغعاب الخبن وهو حذف الثاني الساكن وإن لا جرى حرف كلاباد الريبان خبنيغا إن بدن سو marnay tusaalihiisa haba marka oo baan sharaf rabaan hadii hal tusaale ka bixino tusaalahan ayaan tusaalayno horta ugu horeyn tafciiladan mustafcilun ee bahrigu ku wareegayo wanaad marka hore garato waxay ka kooban tahay hore wanaag u soo marnay tafciilada تفعيل waxa weeye مستفعل مس ومتحرك ساكن وصاب خفيفة ومتحرك ساكن وصاب خفيفة ومتحرك ساكن ووتد مجموعة حتى والصواب كأوه الرئيه خفيف كمس كيس اللباض السين هدي لا تشروح لقوم مقعاوة خبن كيس اللبادة فأدة مستف فأدة هدي لا تشري له حرف فيها أفراد الريبانة وحلا قوم مقعابا طيون هدي لبادة سكولمان أو السين كان الله تشرو فأدة الله تشرو مركا أنا مقع عصبها صوبها وحا الله يقانا خبل لبادة ولا صعود وحا الله يقانا خبل وحا ويه والسين كان الله تشرو فأدة الله تشرو وخبني يطي كل مي مستفعل halka u dambeysay watiga majmuuca cilun ahna hal arin baa gali karo waxa weeyaan nuunka inta la jaro laamka in la sukuuniyo waxa lagu magacaabaa qat'i
marka tafciiladan sida ku muuqata mustafcilun waxaa geli kara afar waxa weeye taqyiir baa geli kara. kow, siinka haddii la jaro waa khabni, faada haddii la jaro waa tayi, haddii labada kulmaan waa khablun, haddii cilun la jaro nuunka oo la sukuuniyo laamkana waa qatcun. intaas waa ugu horreyn suurada koowaad saa u qaado. haddaba waxa ugu badan khabniga ugu badan oo waa siinka in la jaro. marka siinka laga jaro mustafcilun marka laga jaro siinka waxa soo haraya mutafcilun. marka mutafcilun waxa ku jira khabni. lixda tafciile uu yahay meerisku wuxuu ahaa saddex xagga hore ah iyo saddex xagga dambe buu ahaa baxrigu ee meeriskuba ama dee rajisku lixdaba uu geli karaa. sababta wuxuu ku yiri wuxuu gelayaa xashwan wa caruudan wa darban. caruudadii waa taasoo waa shadriga hore aakhirkiisa, darbiguna waa ka dambe aakhirkiisa. afarta soo hadhan waxay ahaayeen xashwi. marka lixda tafciilaba uu gelayaa macnaheedu weeye lixdaba uu gelaya. kaa wayn garanay. tusaalihiisuna dee waa iska badan yahay oo manduumaadka oo kale. tusaale ahaan alfiyada ibn maalik wuxuu yidhi musalliyan cala annabiyi almustafaa. musalliyan meeriskaa u hore ee labaad ee alfiyada musalliyan oo mutaxarik saakin wuxuu noqonayaa mutafcilun. siinkii baa go-an. musalliyan mutafcilun waa kaa khabniga. waanu ku badan yahay gabayga rajiska ah. laba waxaa gelaya buu ihi mustafcilun in laga dhigo muftacilun wayalxaqu waxa haleelayo gelaya yani uu gelayaa weeye fi jamiici ajzaa'ihi ajzaada rajiska dhammaantood ayuu gelaya. wahuwa xasanu waa fiican yahay. wayusamaa waxa lagu magacaaba atayi wahuwa xadfu raabici saakin waa in la jaro xarafka afraad ee reeban. mustafcilun buu ahaa oo laga dhigay mustacilun oo loo raray muftacilun. tayiga isagana waa soo marnay. tayigu waa in la jaro xarafka afraad. hadda waa nigi sheegaya ka hor. atayu waxa weeye mustafcilun mustafcilun in la jaro fa'da weeye tayigu. miimka iyo siinka daaya ta'da fa'da u jar. kadib waxa soo haraya mustacilun. fa'di baa go-an waxay ahayd mustacilun. kadibna waxa loo raraa waxa loo guuraa muftacilun oo fa markaa la keenaya meesha halkii siinka laga dhigaya fa si ay uga dhawaaq fiicnaato. muftacilun waa kaa tayigu. muu keenin tusaale keeno. nin shaacira wuxuu yidhi tusaale weliba aad ugu badan yahay tayigu ayaan qorayaa. wuxuu yidhi maa waladat waalidatun min waladin akramu min cabdi manaafin xasaba. maa waladat waalidatun waxaan u qoraya kitaaba caruudiya min waladin akramu min cabdi manaafin xasaba. maa waladat mustacilun طيب baa ku jira. maa waladat mustacilun waalidatun mustacilun isna waa طيب. min waladin mustacilun isna waa طيب. akramu min mustacilun isna waa طيب. cabdi mana mustacilun isna waa طيب. fin xasaba mustacilun isna waa طيب. gebigiisba meeriskuba lixda tafciila waxay ku socotaa mustacilun waa min acjab alabyaat. lixda waxaa galay tayibaa galay.
ما ولدت والدة من والد أكرام من عبد مناف حاسبا. wuxuu yidhi mustafcilun in laga dhigo mutacilun waa labadii bay kulmaan khabnigii iyo tayigii. wahuwa qabiixun waa fool xun yahay. wayusamaa waxaa lagu magacaabaa alkhabla, khabli baa lagu magacaabaa. wahuwa murakabun wuxuu ka samaysan yahay min alkhabni watayi, khabni iyo tayi wada socda ayuu ka kooban yahay. muu tusaalaynin, laakiin ugu horreyn waxaad ogaataa kani yani khabligu oo laam ah, khablun waa mustafcilun oo labadii meelood laga jaray. waxaa laga jarayaa siinka iyo fa'da. siinkana waa jaraysa xarafka siinka, fa'dana waa la jarayaa. mus buu ahaaye iyo taf ee wuxuu noqonayaa, wuxuu marka hore ahaa mustafcilun, siinkana jar, fa'dana jar. waxaa markaa soo haraya mutacilun, waa ka ficladiisu mutacilun. tusaalihiisi muu sheegin. wafiqalin manaca khayra talabin wacajalin manaca khayra tu'ada. meerisuu ku badan yahay weeye. wafiqalin manaca khayra talabin, manaca khayra talabin wacajalin manaca khayra tu'ada. wacajalin manaca khayra tu'ada. waa kaa gebigiisuba aad buu ugu badan yahay. bala fiirso. wafiqalin mutacilun waa khabli. wafiqalin mutacilun manaca khay mutacilun isna waa khabli. ratalabin mutacilun isna waa khabli. wacajalin mutacilun isna waa khabli. manaca khay mutacilun isna waa khabli. ratu'ada mutacilun isna waa khabli. kanna waa cajiib meriskani. dhammaan tafaaciisha lixdii wuxuu geliyey khabli. waa qabiix hadda la soco. yani meerisku wuxuu noqday qabiix fii 6 mawaadic. 6 meelood buu ka noqday meerisku qabiix. waayo dee khabligu waa qabiix, markuu soo noqnoqdana wuxuu waxa weeye yazdaadu qubxan fawqa qubxi, wuu sii kororsanaya qubxiga. wafiqalin mutacilun manaca khay mutacilun ratalabin mutacilun wacajalin mutacilun manaca khay mutacilun ratu'ada mutacilun. waxa aada ugu badan ceebtaas oo ah khabliga. wafiqalin manaca khayra talabin wacajalin manaca khayra tu'ada. waxaa kaloo bannaan buu ihi mafcuulun in laga dhigo facuulun. mafcuul ayaa laga dhigaya facuulun. wayalxaqu wuxuu haleelaa adarba almaqtuuca, darbigii qadcuu galay buu gelaya, qadcuu ku jiray. wayusamaa waxaa lagu magacaaba alkhabna. wahuwa alxadfu athani assaakin, waa in la jaro waxa weeye xarafka labaad ee reeban. mafcuulun marka hore waxa tafciilo mustafcilun ah soo qaado oo geli marka hore qadci. darbigii markaa qadcigu ku jiray weeyaane soo marnay kii ahaa mustafcilun 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 mafcuulun. mafcuuluntaa wey asalkeedii hore waxay ahayd mustafcilun. taa soo qaado. iyadoo noocaasa ayaa maxaa ku dhacay? qadci baa ku dhaco, nuunkaa laga jaro, laamkaa la sukuuniyey, waxay noqotay mustafcil. waxaa loo guuray mafcuulun. iyadoo mafcuul loo guuray haddana waxaa galay khabni. khabnigu mee waa fa'da, waa in la jaro maxay? fa'daa koobaad ilaa siinka ku beegan tahay. mustafcil ayaa loo guuray oo noqotay mafcuulun ayaa loo guuray. marka mafcuuluntaas waxaa laga soo guuray mustafcilun, mustafcil waxaa loo guuray mafcuulun, fa'da in la jaro wey. marka wuxuu noqonayaa macuulun ayaa soo haraysa. macuulun markay macuulun noqoto waa mutaxarik, mutaxarik saakin, mutaxarik saakin waxay la miisaan tahay facuulun. facuulun waka. marka waxaa soo haraya mustafcilun 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 facuulun. waxaa lagu magacaabayaa
waxa weeye alkhabnu oo galay darbi uu ku jira qadci marka wuxuu yidhi marka hore wuxuu ahaa buu yidhi mafcuulun waxaa laga dhigay macuulun kadibna wuxuu noqday facuul tusaale laakiin ma keenin hal tusaaleen keenaynaa nin shaaciraa wuxuu yidhi laa khayra fi man kafa cana sharahu laa khayra fi man kafa kala goo labada fa cannaa labada nuun kala goo sharahu shar labada ra kala saar rahu hadana ku dar wow sharahu لا خير في من كف عنا شره إن كان لا يرجى ليوم خير إن كان لا يرجى ليوم خير يا راعي القرآن سو حق تقضيعه لا خير في مستفعل من كف عن مستفعل نا شره مستفعل إن كان لا مستفعل يرجى ليو مستفعل مخيري أو متحرك ساكن مخيري فعول وكا halkaas waa darbigii mikhayri facuulun waxaa ku kulmay laba arrimood waxaa ku jira alqaطcu oo ah nuunkii inta la jaray laamkii la sukuuniyey mustafcil ay noqotay mustafcil iyo khabni oo in la jaray siinkay noqotay mutafcil kadib waxa loo guuray dee facuulun waa isku midun marka wuxuu noqday مستفعل متفعل لا خير في من كف عنا شره إن كان لا يرجى ليوم خير وككاسنا ملاحظة في رجارة بحر الرجز أكثر الأبحر وبضها كوغو بدن تغيرا حق اسبدلك في ايقاعاته ميسانديسه يسبدلايه وهذا أرنكني ما سهل ووحى فديدية على الشعراء أبواندا وحى فديدية النظم عليه إنه وحكى تريان وأطلقوا عليه وحى كشيغان حمار الشعر أبوانكي ضميركي قبيقة أي بحيان ما عاصي بحيان بحمار الشعر وقد أكثر العلماء وفر بديان علماء من النظم tirinta ay wax ka tirinayaan calaa wasnihi miisaankiisa ay ka tirinayaan almutuuna alcilmiyata mutuunta cilmiga inay ka tiriyaan bay farabadiyeen baxrigan waa baxri fudud aadna yani ay ugu badan tahay taqyiraadku ay ku badan tahay baxrigan abwaanadu aad bay wax uga tiriyeen gaar ahaan culimada muslimiinta ahee نظمiga cilmiga daryeelay ayaa aad wax uga tiriyay culimada qaar baa yiri wax la yiraahdo bahrul ulum yani waa badda cilmiyada kala duwan laga tiriyay way ximaaru shu'ara ama ximaaru shi'rina waxa loogu bixiyay abwaan kasto gabayga bilaabay meeluhu ka bilaabay kamid tahay fudeedkiisa marka waxay ka tiriyeen buuri المتون العلمية ومن نحو وصرف وبلاغة وعروض ومصطلح الحديث isku jirta كألفية ابن مالك وغيرها سيده الفيده iyo kuwa la midkaaba alfiyat ibn malik oo kun iyo laba meeris ahi waa bahr الرجز وكذلك الفيات la midka الفية السيوطي في علم الحديث الفية العراقي في علم الحديث الفية الحافظ السيوطي في علم البلاغة عقود الجمال la yiraahdo dhamaan alfiyat ka noocaas alfiyada السيوطي kulleeyay cilmiga usul الفقه lagu magacaabo الكوكب الساطع منظومات kuwa ugu yaryar bayqooniyaha iyo tuhfaha iyo jazariyaha iyo kuwa la midka dhamaan gaalibkooda waxay ku socdaan bahr الرجز waa bahri barakaysan weey haba la caayo la yiraahdo waa bahri daciif oo shucaradii hore mutaqaddimiintu gabay kuma tirin jirin rajazka mishaacira wuxuu lahaa abil arajiz ibn al-lu'm tu'iduni fa bil arajiz khiltu al-lawm wal khawar يعني كاغن ليتو ما waxaad igu hanjabaysaa
rajasiyo wallahi rajasiyadoo dhan yani ceeboo dhan waxay ku dhan tahay rajaska buuri qaarkood waxaa laga warinayay inay markaa yidhahdeen arajazan am shicran yani ma waxaad ii tirinaysaa gabay mise rajas laakiin rajasku inuu yahay gabay ayaa loo badan yahay oo waayo miisaanadii buu ka mid yahay carbeed ee carabi ka tirisay صحيح البخاري waxaa ku yaala xadiidka salamat ibn al-akwac uu warinayo walaalkii caamir ibn al-akwac markuu warramayay dagaalkii khaybar ayaa wuxuu yidhi wa kaana caamirun shaaciran caamir abwaan buu ahaa caamir waxa laga wariyey oo tirin jirina wuxuu ahaa rajaska ayuu ahaa tadriibaatun calaa baxri rajaz waa laylisyo ku soconaya baxrigii rajaska marka laylisyadaas waan macnaynayaa waana ku luuqaynayaa afkan waa ka taqdiicinayaa laakiin qoraalkeeda اسكو ضيع ان شاء الله تعالى انا تقدير عسان كو قال ابن اللجأ التيمي ابن اللجأ التيمي وحيري وعمر ابن اللجأ التيمي القرشي في وصف الإبل سوى جيل سفين ايه نينكا waxa lagu sheegay inuu ahaa وصاف للإبل nin geela si cajiib u sifeeyay buu wuxuu yiri qabay dheer weyn gabaygani أنعتها إني من نعاتها مندحة السرات والدقاتها مكفوفة الأخفاف مجمراتها سابغة الأذناب ذيالاتها أنعتها واصفين يا جيلي إني أنيق من نعاتها كوا صفية جيلة أيام كم حي نعات جمع ناعت مندحة السرات حندرهيدو ميداي بلارن تهي حالي تهي مندحة أي متسعة السرات هو جمع السرة وحندرتي مركا حندرتي إذا يا بلارنو وقيل نحن نحيب لي والدقات السرات حندرتيدو ميداي دولك ودودهي حالي تهي أو يعني لا ديسي حندرته كوجيل انتو ناحي si fiicanna u dhargay kayn cusub daaqay markaas caloosh ee dhulka u dhawaatay buu leeyahay makfuufat al-akhfaafi agteeda ballaaran mid la ururiyay xaalay tahay makfuuf ay majmuuca al-akhfaafna waa jamcu khuffin agta ballaaran xaal la ururiyo agaheedu ay isku urursan yihiin yani si fiican u buuxaan hilibka mujmaraatiha ay shadiidati al-akhfaafi khufkeedu ama agteedu miday adag tahay xaalay tahay سابغة الأذناب دبكيدو مدو دميستيرن يحي حالو يحي وذيالاتها ذيالات الأذناب دبكيدو ديري يحي جيلاسو أمانيا مركا والتقدير إن شاء الله تعالى أنعتها مستعيل طيب أكو سوان طيب وحالة شري حرف كي أفراد أنعتها مستعيل إني من مستعيل اسمه طيب نعاتها مستفعل مندحة مستفعل صرات ود مستفعل دقاتها متفعل وخبني مكفوفة المستفعل أخفاف مستفعل مراتها متفعل وخبني سابغة المستعيل وطي أذناب ذي مستفعل يالاتها مستفعل وقال ابن الرومي نك الله يقانا وحيري علي بن العباس ابن الرومي أي لورن شري من أشعر الشعراء وحيري في وصف العنب صدى عنب سفينة وحيري ورازقي مخطف الخصور كأنه مخازن البلور لم يبق منه واهج الحرور إلا ضياء في ظروف النور ورازقي ورب رازقي يعني بدنا عنب عضان رازقي والعنب الأبيض وعنب كعض الطويل الحب أي ديريه المريه سنة
ورازقي فربضنا عنب عضعض دادير او مختفي الخصور يعني كليديسو اي بغلالن تahay مختفي الخصور كليديسو اي بغلالن تahay كانه اد موده مخازن البلور dhagaxa balluurka loo yaqaano meelaha uu ku kaydsan yahay ayaad moodaa balluur waa dhagax qaali ah oo qurux badan oo wixii dhalaalaya lagu shabaha marka midabkiisa uu eeg buu leeyahay balluurka cinabka lam yubqi minhu kamu reebin wahajul haruri kulaylka daran waxa weeye marka leefidiisu kamay reebin ilaa diyaan iftiin mooyaane fi dhuruufi nuuri weel iftiina ku dhex jira wahaj waxa la yiraahdaa sutuucul har waa kulaylku markuu soo baxa weeye uu wax leefayo al harurna waa haru shamsi ad-daa'im waa kulaylka qorraxda joogtada ah kamu reebin kulaylka qorraxda joogtada ah soo bixitaankiisu ilaa diyaan iftiin mooyaane fi dhuruufi nuuri ku dhex jira weel iftiina weel nuuraya yani nuur weelki ku dhex jira marka wuxuu noqonayaa taqdiiciisu waraziqi mutaf'ilun wa khabni yin mukhtafil mustaf'ilun khusuri fa'ulun meeriska waxa ku sugan waxa la yiraahdo tasriic ba ku sugan ama disiga loo dhigo dariiqada ay ahlu cilmigu yiraahdaan baxrajiska waa lagu tiriyaa waxa kamid ah in la yiraahdo baxrajisku غالبا mutaakhiriintu waxay ka dhigaan rajiska waxay ka dhigaan mashtuur marka meeris gabaygani afartan saddexdan waxa leeyahay labada meeris waxay noqonayaan afar meeris bay noqonayaan waayo waa mashtuuro qayb kastaaba waa meeris dhameystiran oo waraziqiyin mukhtafil khusuri inta soo meeris wa beet kaanahu makhazin alballuri wa beet kale lam yubqi minhu wahaj alharur isna wa beet illa diyan fi dhuruf an-nur isna wa beet wa beet marka waa arbacatu abyaat waa dariiqa ay maraan ahlu cilmiga in badan oo kamidi oo waxay ku oranayaan alfiyat ibn malik kun beet ma aha waa 2004 beet bay ku oranayaan waa mashtuur marka khusuri fa'ulun ka'annahu mutaf'ilun wa khabni makhazinul mutaf'ilun wa khabni balluri waxa weeye ومفعول ضمسترا اللوري مفعول اما مستفعل قطع با كجيره لم يبق من مستفعل هو هجل متفعل هو وهجل متعل وي متعل waxa ku sugan khabli oo qabiixa huwa hajul muta'ilun weeye haruri فعول وحكو سوغان خبني iyo طي iyo قطع ولا سocda إلا ضياء مستفعل أن في ضرو مستفعل في نور متفعل أما فعول وقطع iyo خبني ولا سocda وقال وحوري الحطيئة حطيئة وحوري وانك لو oran jiray جرول ابن أوس العبسي جرول ابن أوس ابن مالك العبسي وحويد أهجى العرب وي عربت منكي ugu weerarka badnaa xagga afka la yiri waalidkii xataa kamay nabad gelin hooyadii gabay ayuu tiriyay ku caayay aabihiina gabay ku caayay markii dambana isaga ayaa iscaado gabay iska tiriyay dheer oo la yaqaan marka xutaya wuxuu yiri الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعريبه فيعجمه الشعر قبيق صعب وأدقيه والطويل وديريه سلمه سلانكيسه إذا وقته ارتقى فيه وقتiga irtaqa fihi uu karo alladhi qofkii la yaclamuhu aan garanahayn markuu karo salaankaas ayuu ku adag yahay zallat waqtigaas yani uu karo irtaqa markuu karo fihi dhaxdiisa alladhi ki la yaclamuhu aan garanahayn zallat bihi waxay kula simbirraxata ila alhadid meel hoose ama
يعني sagxadda ayay kula simbirraxataa qadamuhu gomadiisu yuriidu wuxuu doonaya an yucribahu inuu gabaygii caddeeyo inuu ka dhigo fasiix markaasuu fa yucjimuhu markaasuu ka dhigayaa mid cajami ah mid aan yani aan fasiix ahayn an yucribahu yani an yajcalahu fasiixan fa yucjimuhu ay fayajcaluhu rakiikan wuxuu ka dhigayaa mid khaldan oo aan fasiixayn buu ka dhigaya marka qofku gabayga waa inuu iska hagaajiye buu leeyahy weli waxa waa dardaarankiisi markuu dhimanayo gabaygan tiriyaal dardaaran buu ka dhigaya gabayga in la hagaajiyo الشعر صع مستفعل بن وطوي مستعل وطي بن وطوي مستعل رن سلمه مستفعل إذا ارتقى متفعل فيه الذي مستفعل لا يعلمه مستفعل زلت به مستفعل إلى الحضي متفعل وخبني بقدمه متعل وحكو وحوي خبلي بقدمه متعل خبلي وخبني يطي ولا صعبة يريد أن متفعل يعربه مستعل يريد أن متفعل وخبني يعربه مستعل وطيه فيعجمه متفعل وخبنه وقال وحوري السري الرفاء أي وحوري نقول الله يقال في وصف الشمعة صغو صفين أي شمع ير شمع على شتوي يعني قريها لقو شدو أي وحوري ومجزوء الرجز وحكو عنها مستفعل أفر شهر من غرية مركة مفتولة مجدولة تحكي لنا قد الأسل كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل هي شمع ضاسي مفتولة مثل الصوهيوي طال الصوهيو مجدولة أي محكمة للصغي وتحكي لنا يعني نو شبهيسا قد الأصل ورمها تشو جود أي شبهيسا حق ديريدا كأنها واحد مودابة عمر الفتى ويلك عمر جيس أياد مودا والنار الضبك أو فيها كل حسوان شمع عاصينا كالأجل جيريدي بولمدي هايو ضبك وحو مرينا يا أو بابينا يا شمع جيريدنا وحي بابينا يسا ويلك مركا ويل بكو شبهي شمع يرى بحيه أو دي ضبك مرينا أيو وسيده ويل يرو دheer qurux badano marka aakhirka yani uu dilaayo geeridu ay dilayso maftuulatun mustaf'ilun majdulatun mustaf'ilun tahki lana mustaf'ilun qad al-asal mustaf'ilun ka'annaha mutaf'ilun wa khabni عمر الفتى مستفعيل والنار في مستفعيل هكا الأجل مستفعيل وقال وحور الصحير ابن عمرو وقال وحول الصحير بن عمير هاي هذا وحول ومشطور كان والله مش هديرو يرويانو مثل ساميرس هاي تهزاء مني أخت آل طيسلة قالت أراه مملقا لا شيء له تهزاء مني وحي يقول ديريسا أخت آل طيسلة هير طيسلة ولا شود ayaa igu dheeldheelaysa qaalat waxay tiri uraahu waxaan u arkayaa mumliqan inuu yahay nin faqiir ah mumliqan ay faqiiran laa shay'a lah oo waxba aan haynin adduunya tahza'u min musta'ilun wa tayyib ni ukhtu a mustaf'ilun litaysalah mutaf'ilun wa khabni qaalat ara mustaf'ilun هم مملقا متفعل وخبني لا شيء له مستفعل وخبني مركا انت ان شاء الله تعالى بصوت تقديعيه دي لا كدغو بارك الله فيكم ان شاء الله انو والله سبحانه وتعالى اعلم